إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan insha allahu tacaala casharkan kusoo gudbin doonaa casharadii hore taxanaha ahaa ayaynu sii wadi doonaa ee ku saabsanaa habdhaqankii nabigeena sala allahu calayhi wasalam iyo sidii uu la dhaqmi jiray xaasaskiisa nebigu sala allahu calayhi wasalam si aan ugu dayayno oo inaguna guryaheenna markii aan la dhaqmayno xaasaskeenna aan nebigeenna habkii ula dhaqmi jiray aynu ugu dayayno laanno ilaaheen ayaana amray oo yidhi laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana. nebi maxamed waxaa idinkugu sugan ku dayasho wanaagsan. casharkan waxaan kusoo qaadan doonaa insha allahu tacaala nebigu habkii uu la dhaqmi jiray xaasaskiisa markii waxyaalo uusan jeclayn ay uga yimaadaan xaasaskiisa iyo dulqaadkii ugu lahaa nebigu sal alla alay wasalam xaasaskiisa waxyaalo gefa markay ka dhacaan oo isagoo ku saabsan sidii uu ugu dulqaadan jiray iyo sidii ugu dabacsanaa ayaan kusoo qaadan doonaa. sida aynu ognahay nebi maxamed sal alla alay wasalam xaasaskiisu ma ahayn malaa'ig, ma ahayn bashar bay ahaayeen. waxyaalaha ninka iyo xaaskiisa dhex mara ayaa nebiga iyo xaasaskiisa dhex mari jiray. dumarkiisu way masayri jireen. dumarkiisu mararka qaarkood masayr ama hinaaso wax dhawaa ka dhici jiray. zawjadu xaasku sida ninkeeda mararka qaarkood ay ugu xanaaqday ayay ugu xanaaqi jireen. laakiin nebigu waxyaalahaasoo dhan waxa uga gudbi jiray sal alla alay wasalam dhaqan wanaagsan iyo u dabacsanaan iyo in isaa'adii ama xumaan isaga loogu sameeyey usan xumaan kale ku gudin. ma ana xaasaskiisa keliya, xataa dadka kale markay xumaan ku sameeyaan nebigu sal allahu alay wasalam waxa uu ahaa naftiisa mid aan u aargudan ayuu ahaa sal allahu alayh wasalam. nebigu marka xaasaskiisa waxaa ka dhici jiray waxyaalo badan oo mararka qaarkood ama hadalka kor ugu qaadqaadaan ama mararka qaarkood masayr ah ama mararka qaarkood hadduu ilaahay kuu roon yahay qaarkood intay ku xanaaqaan bay habeenkii uu lahaa maaragtay gurigeeda ayay ka hijroon jireen oo firaashka ay ka durki jireen. waxyaalahaasoo dhan siirada iyo axaadiista ayay ku sugan yihiin. nebiguna uu dulqaadan jiray sala allahu alay wasalam. caaisha waxay tiri xadiis saxiix ah oo imaamu bukhaari uu saxiis ku wariyey, nebigoo marti ay u joogto ayaa oo gurigeeda uu joogo ayaa safiya oo aad caaisha ay uga hinaasi jirtay ama ay uga masayri jirtay. safiya radiallahu umulmu'miniin oo aad cuntaday u taqaanay habka cuntooyinka loo sameeyo. aabbaheed wuxuu nin boqora oo yahuudi ayuu ahaa. marka cuntooyinka aad u taqaanay maaragtay si carabtu ay yaqaanaan si ka wanaagsan. marka nebiga ayay cunto usoo hadiyeysay isagoo marti ay la joogto. caaisha way ka hinaastay, weelkii iyo cuntadii ku jiray oo dhan bay jebisay. marka nebigu sal allahu alay wasallam ma xanaaqin, caaishana ma usan canaanan, mana usan caayin, mana usan dilin. dabeecadiisuna ma ahayn weligiis gacantiisu xaasaskiisa ma gaarin iyo khudamtiisa dadka u khidmeeya iyo cid kaleba nebigu sal allahu alay wasalam. nebigu wuxuu saxaabadii ku yidhi agaarat ummukum, hooyadiin ayaa maaragtay hinaastaye dhib ma leh buu yidhi, iska cuna buu yidhi cuntadiina buu yidhi. iyadiina wuxuu ku yidhi inaa biinaa, weel baa adi lagaa qaadayaa wey, wax kale kuma dhihin. yacni dulqaadkaas ayuu nebigu u muujiyey sala allahu alay wasallam. innaga bal tasawur hadday qof xaaskiisu ay raggiisa martiisa hortiisa waxa ku samayn lahayd, waxa laga reerku dhanba inuu kala tegi lahaa ama furin u dhici lahaa. runtii in badan oo maantayto xaasaska guryaha furiinka waxaa keenaya dulqaadkii oo yaraaday, siiba raggii. waxyaala raggu waagi hore u dulqaadan jireen ayaysan maanta u dulqaadan. sababta ninka dalqada loogu dhiibay waxa weeye inuu dulqaad yeesho, inuu sabr yeesho ayaa loo baahan, inuu fiiriyo waxyaala consequencega ama waxyaalaha ka dhalanaya reerkii, carruurtii, waxyaalo badan inuu xeeriyo ayaa loo baahan yahay. nebiga sal allahu alay wasalam axaadiista waxaa ku sugan oo saxiixa inay sawdka qaar kor ugu qaadi jireen nebiga sal allahu alay wasalam, in ay ka hijroon jireen. xataa maalin ayaa nebigu abubakar wuxuu guriga usoo galay caaisha oo nebiga hadal kor ugu qaadqaadaysa. markaasuu nebigu abubakar ila aabaheed buu haaye buu aad u canaantay caaisha. uu yidhi ma nebiga ilaahay baa codka kor ugu qaadaysaa, waxay yahay saana oo saana oo saana, waa gabadhiisii. markaasuu nebigu wuxuu yidhi iska dhaaf buu yidhi, dhaaf buu yidhi, iska dhaaf buu yidhi. nebigu sal allahu alay wasallam tartiib buu ula hadlay, kadibna wuu dejiyey. kadibna abubakar wuxuu soo noqday, labadoodii isla qoslaya ayuu soo noqday nebigu abubakar radiallahu tacaala canhu. dabeecadiisa nebigu sal allahu alay wasalam waxaa ka mid ahayd in uu dulqaato, in uu xaasaskiisa u sabro, in uu xaasaskiisa waaniyo, in uu u caqli celiyo. saasaana looga baahan yahay haddii aynu nahay
ragga mu'miniinta ah ee muslimiinta ah ee jecel nebi maxamed inay ku daydaan akhlaaqdiisi guryaheennana laga badbaadiyo inay guryuhu ay burburaan ama ay xaasasku iyo raggu ay kala tagaan waxaa la rabaa carruurta in la tuso akhlaaq wanaagsan inuu wiilku markuu arko aabihiis oo hooyadiis u dulqaadanaya u sabraya hadhow waxaa dhacaysa isna inuu sabro oo uu dulqaato ayaa dhacaysa waxa weye waa madraso weye gurigu hooyada iyo aabbuhu afka waxa laga sheego carruurta waxaa ka muhiimsan ficilka waxa ay ku arkaan markay arkaan odag iyo aabbihii isku dulqaadanaya aabbihii oo hooyadii u sabraya hadhowna isna xaaskiisa saas kale ugu sabraya maanta waxaan ka sheeganaynaa in badan oo naga mid ah wiilashii iyo carruurtii si wadamada qurbaha ah isla markiiba way isfurayaan laanno waxaa laga yaabaa aabbayaalkii dadka waaweynaa noo imaanaya iyagoo isfuray maxaa moodaa carruurtii marka waxaan u baahannahay inaanu taasna aynu nebigeenna aan uga dayano dulqaadka iyo sabirka iyo uturiinka dumarka waa wax wanaagsan ninku kullamaa xaaskiisa u turo u wanaagsanaadana waa sayid waaye waa nin wanaagsan weeye ma ahan inuu yahay nin loo har ah ama nin xun inuu yahay hada wallahu subxaana wa tacaala aclam insha allah waa inuu xalaqada soo socota oo aynu sii wadi doono ku dayashadii nebigeenna ee gurigiisa sala allahu caleyh wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu